sida ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa jiheeya siyaasadda arrimaha dibadda qayb kasta oo dawladda ka mid ahna mas'uuliyad baa ka saaran kaalinta kaga aadan xaqiijinta iyo meelmarinta mas'uuliyaddaasna ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynuhu wakiishay markaasaa ra'iisul wasaaruhu u sii wakiishay wasiir ka mid ah golihiisa wasaaradda arrimaha dibadda waa wasaaradda isku duuda ama isku dabaridda siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeena waana wajigii aan caalamka ku qaabilaynay haddaba anigoo ku kalsoon howlkarnimada iyo tayada howlwadeennada wasaaradda iyo dhammaan diblomaasiyiinta Soomaaliyeed waxaan ku rajaynahay in shaqada muhiimka ah ee wasaaraddan qaranka ay u hayso aan si laba jibaari doono kana si ambaqaadi doono halka ay maanta joogto taasna waxa ugu weyn geedi socodka goor hore aan soo bilownay sida dejinta qorshihii sida rasmiga aan bilownay 2018 haddana uu soo gabagaboobay qorshahaas wuxuu ku saabsan yahay sidii Soomaaliya ay ula wareegi lahayd mas'uuliyadda sugidda amniga qaranka oo muddo 14 sano ay qayb badan Soomaaliya uga tiirsanayd howlgalka ciidamada midowga Afrika iyo ciidamo kooban oo ka socda dalal aan gacan saar dhow la leenahay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa biyo sacbadaada looga dhargaa waxaan uga golayaa meeshaas muhiimad iyo mudnaan weyn ayay inoo leedahay taabagelinta qorshaha ay Soomaalidu kula wareegayso mas'uuliyadda sugidda amnigeeda qaran sida ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa jiheeya siyaasadda arrimaha dibadda qayb kasta oo dawladda ka mid ahna mas'uuliyad baa ka saaran kaalinta kaga aadan xaqiijinta iyo meelmarinta mas'uuliyaddaasna ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynuhu wakiishay markaasaa ra'iisul wasaaruhu u sii wakiishay wasiir ka mid ah golihiisa wasaaradda arrimaha dibadda waa wasaaradda isku duuda ama isku dabaridda siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeena waana wajigii aan caalamka ku qaabilaynay haddaba anigoo ku kalsoon howlkarnimada iyo tayada howlwadeennada wasaaradda iyo dhammaan diblomaasiyiinta Soomaaliyeed waxaan ku rajaynahay in shaqada muhiimka ah ee wasaaraddan qaranka ay u hayso aan si laba jibaari doono kana si ambaqaadi doono halka ay maanta joogto taasna waxa ugu weyn geedi socodka goor hore aan soo bilownay sida dejinta qorshihii sida rasmiga aan bilownay 2018 haddana uu soo gabagaboobay qorshahaas wuxuu ku saabsan yahay sidii Soomaaliya ay ula wareegi lahayd mas'uuliyadda sugidda amniga qaranka oo muddo 14 sano ay qayb badan Soomaaliya uga tiirsanayd howlgalka ciidamada midowga Afrika iyo ciidamo kooban oo ka socda dalal aan gacan saar dhow la leenahay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa biyo sacbadaada looga dhargaa waxaan uga golayaa meeshaas muhiimad iyo mudnaan weyn ayay inoo leedahay taabagelinta qorshaha ay Soomaalidu kula wareegayso mas'uuliyadda sugidda amnigeeda qaran sida ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa jiheeya siyaasadda arrimaha dibadda qayb kasta oo dawladda ka mid ahna mas'uuliyad baa ka saaran kaalinta kaga aadan xaqiijinta iyo meelmarinta mas'uuliyaddaasna ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynuhu wakiishay
markaasaa ra-iisul wasaaruhu u sii wakiishay wasiir ka mid ah golihiisa. wasaaradda arrimaha dibaddu waa wasaaradda isku duuda ama isku dabaridda siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeena, waana wejigii aan caalamka ku qaabilaynay. haddaba anigoo ku kalsoon howlkarnimada iyo tayada howlwadeennada wasaaradda iyo dhammaan diblomaasiyiinta Soomaaliyeed, waxaan ku rajo weynahay in shaqada muhiimka ee wasaaraddan qaranka ay u hayso aan sii laba jibaari doono, kana sii ambaqaadi doono halka ay maanta joogto. taasna waxaa ugu weyn geedi socodka goor hore aan soo bilownay, sida dejinta qorshihii sida rasmiga aan u bilownay 2018 haddana uu soo gabagaboobay. qorshahaas wuxuu ku saabsan yahay sidii Soomaaliya ay ula wareegi lahayd mas'uuliyadda sugidda amniga qaranka oo muddo 14 sano ay qayb badan Soomaaliya uga tiirsanayd howlgalka ciidamada Midowga Afrika iyo ciidamo kooban oo ka socda dalal aan gacan saar dhow la leenahay. Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa biyo sacbadaada looga dhargaa. waxaan uga golayaa meeshaas muhiimad iyo mudnaan weyn ayay inoo leedahay taabagelinta qorshaha ay Soomaalidu kula wareegayso mas'uuliyadda sugidda amnigeeda qaran. sida ogtihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa jiheeya siyaasadda arrimaha dibadda. qayb kasta oo dowladda ka mid ahna mas'uuliyad baa ka saaran kaalinta kaga aadan xaqiijinta iyo meelmarinta mas'uuliyaddaasna. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynuhu u wakiishay. markaasaa ra-iisul wasaaruhu u sii wakiishay wasiir ka mid ah golihiisa. wasaaradda arrimaha dibaddu waa wasaaradda isku duuda ama isku dabaridda siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeena, waana wejigii aan caalamka ku qaabilaynay. haddaba anigoo ku kalsoon howlkarnimada iyo tayada howlwadeennada wasaaradda iyo dhammaan diblomaasiyiinta Soomaaliyeed, waxaan ku rajo weynahay in shaqada muhiimka ee wasaaraddan qaranka ay u hayso aan sii laba jibaari doono, kana sii ambaqaadi doono halka ay maanta joogto. taasna waxaa ugu weyn geedi socodka goor hore aan soo bilownay, sida dejinta qorshihii sida rasmiga aan u bilownay 2018 haddana uu soo gabagaboobay. qorshahaas wuxuu ku saabsan yahay sidii Soomaaliya ay ula wareegi lahayd mas'uuliyadda sugidda amniga qaranka oo muddo 14 sano ay qayb badan Soomaaliya uga tiirsanayd howlgalka ciidamada Midowga Afrika iyo ciidamo kooban oo ka socda dalal aan gacan saar dhow la leenahay. Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa biyo sacbadaada looga dhargaa. waxaan uga golayaa meeshaas muhiimad iyo mudnaan weyn ayay inoo leedahay taabagelinta qorshaha ay Soomaalidu kula wareegayso mas'uuliyadda sugidda amnigeeda qaran.